maanta deegaanka Kalshiikh gobolka Sanaag lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay soo dhaweynta inamadii ku dhawaaqay jabhadda ee buurta Siraadley. Munaasabaddan si heersare loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale gudidii xukuumadda nabadinta u joogay degmada Elfina gobolka Sanaag. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dadaalo badan gelisay xukuumadda Somaliland ee hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo Somaliland lagu majarto isku tashi iyo isku tanaasul. ayaa haddana tani waxay marag buuxda u tahay in dadka Somaliland iyo dawladdu ay nabad ka go'an tahay. Munaasabadan oo yartay isqabatay ayaa waxa ugu horeyn madashani ka hadlay cuqaasha waxgaradka deegaankaas iyagoo mahadnaq ballaan u jeediyay xukuumadda Somaliland. anaga waxaan noo farxada haddaanu nahay deegaanka Kalshiikh wada hadalkii la galay jabhadda ee markii horena odayaashu la galeen markii dambena wasiirada ay la galeen maantana halka kan xafladda lagu qabanaya ay tahay ujeedadeedu jabhadii oo ku soo noqotay qaranka Somaliland. aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa ugu horeyn oo u salaamayna oo soo dhaweynaa dhalinyaradii bedelay fikirkoodii ay ku dhawaaqeen markii hore ahaa dagaal u bedelay nabadgelyo iyo dhisme iyo horumarka dalkeena ka qayb qaataan. aad iyo aad baan u salaamayna una soo dhaweynayna anigoo ku hadlaya afkii odayaasha dhexdhexaadiyaasha ee ka hawlgalay inay xafladani dhacdo maanta ilaahayna u aqbalay. waxaan mahad celinayaa jabhaddii aanu tagnay iyo dawladdii aanu u keennay oo labaduba noo fududeeyey waxyaabihii aanu la nimi. dhallinyaradii xanaaqday ee wax istuseen ee halkaa u baxday ee dhawaaqday ee haddana markii loo caqli celiyey aqbashay oo maanta dhex fadhida xukuumaddii iyo shacabkii ka mid ah iyagoo aan sidii ninkii hore u sheegay khasaarana ku dhicin cidna iyana khasaare geysan. waa alxamdulillahi rabbil caalamiin taana waa ka mahadnaqaya. waxaanu lagu soo dhaweynaynaa sidii ay iyaguna loogu maqleen loogu dhigay wadanaadeen madaxdii dawladda wasiiradii balasaabidii dhammaan intii iyaduna lagala shaqaysay aad baan ugu mahad celinay. jabhaddii halkaa ka dhawaaqday aanu qaybta ka ahayn ee ay ku jireen dhalinyarada iyadii waanu doonnay waxaanu u doonnay oo u keennay waxa weeye waa tixgelin aanu tixgelinayno qarankayaga iyo xasiloonida iyo nabadda gobolka ama maaragtay ee markaa Somaliland oo dhan iyagana waa u mahad celinaynaayo nagumay dhagaadkan. intaasi kadib waxa iyaguna goobtani ka hadlay qaar ka mid ah nimadii ku dhawaaqay jabhadda xaqdoon iyagoo shaaca ka qaaday mabda'oodii hore ay ka tanaasuleen waxaanay xukuumadda uga mahad celiyeen siday uga tureen muddadii ay duurka ku jireen waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. waxaan soo jeedinayaa oo aad iyana u hambalyeynayaa inamadayadii waayeelka ahaa ee markaanu caroonnay ee jabhaddaanu ku dhawaaqnay annaga iyo xukuumadda isku soo kala xidhiidhiyay shaqada badan aad uga geystay. marka xigaa waxaa xustaa mudan mar haddaan annagoo jabhad u baxnay oo xukuumaddayadii aanu u shaqaynaynay heer qaran wax ka tabannay waxyeelana aanay jirin aanu geysanay annagoo dalka u turayna xukuumaddayadii u turaysay aanu wada hadal maanta isugu nimay iyo xaflad inaan ku dhammaysanno wada hadalkayagii ayna noo bilaabantahay wixii noo harayna aanu xaasxaasiyadii fadhi dambe isugu laaban doono. waxaanu isku soo hor fadhiisannay si nabad qaba waanu wada hadalnay waanuna is afgarannay nabad baanu isku afgarannay. tan labaad alxamdulilah maanta annagoo nabad qabna qarankuna nabad qaba aanu dhibaato noo geysan annuna aanan cidna waxba u geysan inaanu si wada hadal ah ku heshiinay. ta kale markaanu meelaha joogno wax la yahaa xukuumaddu xanta waxay yidhaahdaan xukuumaddu wakti badan ma geliso nabadda. war waxaan dadka u caddaynaya xukuumaddu geliso nabadda wakti badan oo aanu buuraha isugu tagnay cid noo soo dirto aanu u nimi oo aanu wada hadallo is afgarannay
waxaan leeyahay dadka meelaha ka nuxnuxle war waqti badan bay juhdi badan bay xukuumaddu gelisaa nabadda halla qaadko haligu soo dhawaado waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba nimankii ga horreeyay hadalka dhameeyey dadka u caddaynaya in hawsha jamhadda la odhan jiray xaqdoon soo gabagabowday anigu kii afkiisa kaga dhawaaqay baan ahaa maantana waxaan dadka u caddaynaya war magacayaan lagu magaalaysan oo dibada dadka ayay ku magaalaysan intay dambiya galaale waanaga arkaysaan geestiisa waxaa isaguna madashani ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo hambaliyo bogaadin u diray inamadan aad bay u mahadsan aad bay u amaanan rasuulkeenu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ummadayda ma qof aan caroonin ee tamirba male mana aha ummadayda midaan ka soo noqonin marday noo soo noqdeen way nimadeeni waxba inaga male waxba kama lihin waa ilaahay mahadi sida ay ballan qaadeenna inay fuliyaan waa looga fadhiyaa magacaana cid ma ku shaqaysanaysaa ma jirto kitaabkaas uu laabmay waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay guddiga xukuumadda nabadeynta u joogay degmadaasi Ceelafin gobolkaasi Sanaag oo dhamaantood hoosta ka xariiqay muhiimadda ay nabaddu leedahay maanta waa xaflad wanaagsan oo balaaran waxa weeyaan mahadnaq inaan jeedsano weeyaan waxa weeyaan mahadnaqa waxaan u jeedinaa marka koowaad ilaahay ina kala badbaadiyay inaga iyo inamadeenna inaga cadhooday sida guud dawladdu waxay ka kooban tahay dadyow badan oo isku yimid maaha in gooniyo in u talinaysa maaha inunbaa dadkana wada matasha lagumana sheegto sideeda guud hub iyo iska celin waxaad sheeganayso nimankan iyagoo bay xaroodeenoo iminka bay ka baxay jabhadii cid allo cid kastoo ku tala jirta in wax ay samayso war markaad wax sheeganayso sida wanaagsan ee suuban u sheego hore ilaaha weynayna abuurtay baa mahad leh ilaaha nabadda iyo barwaaqada ayna siiyey baa mahad leh ilaaha quluubteena soo jeediyey baa mahad leh ilaaha dhibta dhexdeena ka ilaaliyey baa mahad leh labaadka waxaan u mahadnaqaynaa odayaashii xilkaska ahaa ee dawladdii cadhootay iyo inamadii cadhooday kala dhex gashay ee aan dhexdooda waxba ka dhicin ee ku dadaalay inay maanta halkaa ay soo gaarsiiyeen inay keenaan odayaashaana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxay kaloo mahadnaqaynaa dhalinyarada halkan fadhida oo ku dhawaaqday maalintii dhaweyto inay jabhad yihiin maantana halkayna la fadhiya iyagoon wakhti badani ka soo wareegin iyaguna garashada ay garteen inaan dadkooda reer Somaliland iyo tolkood midna meel wax lagaga dhuftaa inay u muuqan weyday oo markii ay xisaabtadeen meel alla meel ay wax kaga dhuftaan ayay garan waayeen taasuna waxay ku kaliftay inay dabeedna dib bulshadoodii ugu soo noqdaan waa dhab waa xaqiiqo jirta inaanay ummadda reer Somaliland lahayn maanta meel wax lagaga dhufto waayo dhibaato way noo soo dhamaatay xabadi way noo soo dhamaatay dil way noo soo dhamaaday barakac way noo soo dhamaaday balaayinka waxaynu nahay dunida cid ugu muxuu ahay khabiirsan laba arrimood baan yar ka oranaya mid waxa weeyaan nabadgelyada midna waa ilaalinta qarannimada nabadgelyadu waxa la yiraahdaa waa saliga geesiga waa sahayda qofka bini aadanka waxa lagu mahmaha laba gees bay suraacaan col iyo abaar iyo nabad iyo caano walillahi baan idinku dhaariyay ma col iyo abaar baynu dooranaa mise nabad iyo caano soo nabad iyo caano ma doorano nabad baa naasna luuga leh nabad waxaan anigu Sanaag hadii sheegaya kelmadaynu ku celcelinaa baa jirta waxaan odhanaynaa horumarkii baanu ka hadnay caynkanaanu ka hadnay horumarkii sidii chief sheegay ma inaga iska reebnay mise cid baa inaga reebtay waxa weeyaan in laba dawladdan waxay dhisnay 2 sanadood iyo 6 bilood 7 bilood 6 bilood baan halkan joognaa Maxamed Kaari markii hore Xasan Gafaadhi iyo haddana 40 cishaan joognaa meel kale waddanka inta la joogo oo nabad loo jooga waddanka kama jirto lacagta ku baxday baabuurta shidaalka wixii oday la keenay wixii caaqil la keenay wax walba inoo samayn lahaayeen haddii aynu inagu rabno horumar dawana nabad keensano waxaan leeyahay
aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen iyo sida runtii wafdi ahaan annagoo maanta 45 casho maanta joogno xaggiinan sida wanaagsan ee hawluhu ay u socdaan iyo sida wanaagsan ee haddii alla yaa u dhammaan doonaan rajo weynna aanu ka qabno maanta ragga halkan fadhiya waxaan u sheegayaa cid kastaba Somaliland waxa la yiraahdaa laynagu xantaa wuxuun bay sabtaa waa Somaliland sabaadun bay ku jirtaa cidun bay sabaysaa ma aha Somaliland wada hadalkay ku caanamaash ma aha sabaad waa wada hadalka iyo geedka aynu fadhino iyo barxadda quruxda badan aynu fadhino ayay ku caanamaash aynu wada hadallo waa aynu heshiino bini'aadamna waa leeyahay maalin walba ilaa malaa'ig ma nihine waa la qaldamaya waa la isku qaldamaya ilaa haabiil iyo qaabiil iyagoo adduunyadaba nabi aadan iyo reerkiisa oo kaliya deganaayeen ay labadiisa inaan isku dileen hadda adduunyada cid kale ma abuurnayn haabiil iyo qaabiil ba halka bariga isku dilay wuxuu way istaba soconayaan waa loo nooliyay laakiin waa laga soo dooganay maanta waxaan leeyahay Somaliland cid dheeri ma jirto qof kama maarno hal qof kama maarno haddii la halkaas uu ka baxay haddii la diyaarad buu raacay haddii la doonu ku fakada haddii la yiraahdo wuu taariibay Somaliland hal qof kama maaranto ragana maanta waxay muujinaysaa inta casho ee odayaashu meesha ugu tageen inta casho ee wasiiradu ka shaqeynaya waliba wala si kala leeyahay shaqada raggii shaqada lahaa aanay ka fadhiisan saddexda nin waliba maanta jifadaha aanay mar waaxida ka fadhiisan odayaashuna aanay ka fadhiisan waxa kaliya aan anigu kelmadun baan idinkaga tagay nabadgelyadu waa shayga qaaliga dadka saliga ku wada fadhiyana waynuna dadka saliga Somaliland waa in sali ku wada fadhida waxaynu kala nahayna ma jirto halka ka ugu shisheeyay dahar maanta joogay ka ugu shisheeyay saylac isaguna inaga jooga wallahi inaanaynu hal qof aduu inaga baxaanaynu ka maarmay inaynu is ilaalino oo is ilaashanaynu u baahnay inagu inaynu is ilaashanaynu qalbiga iska ilaashanaynu u baahnay haddii aynu qalbiga iska ilaashan weyno in badan baa ka hadashay wala inoo soo dhacay mid baynu waligeen baahayna aynu xabada ahaan inta waxa muhiim ah oo mar walba cid walba ay u furantahay inuu ka hadlo waa nabadda waxaynu wax ku noqon karnaa mar walba saakan aynu halka ku joognaa harana aynu ugu dhaqnayn mustaqbalkana aynu rabnaa ilaahay inuu inoo adkeeyaa waa nabadda horumarkaaynu doonaynaa nabadda ayaa ka koowa haddii waddadaadii la soo mari waayo haddii cidi aamini weydo meeshii aad ku noolayd in la yimaado haddii dab ka baxayo haddii qofku lafihiisa uga boqo oo is yidhaahdo markay ugu liidato xabad seelaaliso adigaba aan kugu socon ayaa kugu dhici doonta dee harumar ma imanayo tan labaadna waa laga hadlayo horumarka deynteennu waynu qabnaayo waxaynu siisanay xabad iyo shidaal iyo baynu siisanay iyo maxaan ku dhahdaa dhaxorod iyo ciidan la soo kiciyo oo la kala dhex galo maxaan ku dhahdaa reero islaynaya tan waa qabnaa inagu inteenna waa qabnaayo haddaynu inagu doorannay inaynu maxaan ku dhahdaayey dhigi weyno qoriga dhigi weyno oo maalin walba aynu iskula yaacno intaynu xaqa u lahayn horumarka masaajidada lagu dhisi lahaa saldhigyada lagu dhisi lahaa iskuullada lagu dhisi lahaa inka badan baynu ka qabnaa dowladda haddaynu doonayno waxa aynu ka hadlaynaana inay dhismaan oo aynu hello waxaanaynu ku jirno inaynu ka baxno weeyaan dadku nabaddu waa ta asalka ah waa la islaayaa muddaa la isbaacsadaa dil badan baa dhaca dhaawacyo badan baa dhaca naafo badan baa dhacda goor la baayay oo la hoogay ayaa waxay khasab qofka ku noqotaa ama ciddii dagaalamaysa waxay khasab ku noqotaa inay nabaddii ogolaadaan asalkaa loo soo noqonaya colaaddu maaha asal laakiin nabadda ayaa asala goorba marka waxa weeye nabaddu waa mar aad garatid adigoo khasaaro yar iyo goor ay khasab iyo sanduulle kugu noqoto adigoo maxaan ku dhahdaay lumay oo kala hadhay oo maxaan ku dhahdaay kala dhintay ayay kugu noqonaysaa waxa ilaahay mahadiya in odayaashii iyo waayeelkii dhiileysnana maanta farxad iyo arrinkoodii oo la aqbalay iyo dowladnimadoodii oo la maqlay ay halkan ku fadhiyaan xukuumaddana xilkii guud ee nabadda ka saaraa oo ilaahay suurto geliyey inamadii halkaa u baxay wax kastaba ha ka cadhoodeene iyaguna ay go'aansadeen
oo aanay ku kala hadhin inay dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda u soo noqdaan waa ilaahay wax lagu mahad celiyo weeye waana wax lagu farxo weeye waana waxay dhaqan u leedahay somalilan runtii halkan maanta waxa yaalla mahadnaq iyo shukrinaq aynu ilaahay u mahad celinayno iyo intii ka shaqaysay oo odayaashu ay kow ka yihiin iyo inamada ka aqbalay iyo xukuumadduba ay runtii iska kaashadeen aad baynu ugu mahad celinaynaa runtii nabadda waa lagu dheeraaday waxayna loogu dheeraaday qiimaha ay leedahay dadka halkan fadhiya in yar mooyaane waa dad wada waayo araga wax badanna u soo joogay waxaynu garanaynaa oo ugu celcelinaynaa nabaddu innaga ka somalilan ahaan qiimo culus bay inugu joogtaa qarankeenna sidaynu ku keennay oo waa garanaysaa waxaan runtii ku soo koobayaa dhowr guuto ayaa halkan jooga oo runtii aa og tihiin haddaa idinku kaga fillaataan ciidamada qaranka nabadda aa kaga fillaataan waxaynu u gudbaynaa horumarka waddadii baa inoo bannaanaanaysa horumarka taana waxaan rajaynayaa waa ballan qaadeen waana ku mahadsan tihiin waana waajib inoo wada saaran sanaag markii la maqlo haddeerta dadku waa sasaa maanta haddii saskeenu bedelayoo dadku wax wanaagsanna ka maqlayaan waa fiicannahay in ilaahay bilowgiina idinkaa qaatay oo in wanaaggii iyo samaantii lagu soo celiyo iyo jabhaddii caaro inay ka horreysay waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsan tihiin maadaama aad garateen inaan dhib waxaynoo ku jiraa jirin gulaaladkii waxaa madashani boqor soo afmeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed wasiir kaahin oo ku dheeraaday nabadda iyo horumarka siday iskugu lamaan yihiin arrini waxay ku urursan tahay waa nabadgelyo haddaan nabadgelyo jirin bini'aadmigu silic buu ku nool yahay somalilan waxay u kala hormarsan tahay sida nabadgelyadeedu u kala taabagashan tahay iskuulladoodu waxay u kala wanaagsan yihiin iyo jaamacadaheedu sida maxaanku dhahdaye nabadgelyadu ay u kala hormarsan tahay mucaawinadu waxa ay u kala tegaysaa siday u kala hormarsan tahay marka waxaynu samaynaynaa dantu wax shay qudhay ku jirtaa dantu waxa qudhay ee ay ku jirtaa bini'aadmiga dhaqaalihiisana ay ku jirtaa aadamaha noloshiisana ay ku jirtaa maxaanku dhahday waa nabadgelyo codsiyadii deegaanka markii horenu nimina waa noo sheegay tixgelinta ugu mudan baanu siinaynaa annaku diyaar baanu nahay oo arrintan waan ka shaqaynaynaa dee nabadgelyadii haddaan nagala shaqaynayninna horumarka halkaanu marinaynaa waryaar su-aashaasi isweydiin male annakuna aad baanu ka shaqaynaynaa waanu qaadanaynaa waanu soo hirgelinaynaa waanu ku talagelaynaa inaanu hawshaa deegaanka aanu wax ka soo qabanno nabadgelyooyinka inihii hore ee aynu gacanta ku haynay iyo cidaha idin khusaysana waynu isu keenaynaa